بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن هبون أخياري ومركن يا برنامج كني أقالك دعوينك دنيدا أينو كوركيدا كنا لناي وأنا مقال كي صدحات أو إمكان إنه كسو قادن دونه حبسية وجوحن حبسية عالمك حبسيgaas waxaana lagu magacaabaa Pitik Island Floga Russia ayaa lagu magacaabaa inta badan waxa loogu yeeraa Altres of Russia wuxuuna ku yaalaa jasiirad lagu magacaabo iyadana isla magacan leh oo la yiraahdo Pitik waxayna haysataa dambiilayaasha ugu khatarta badan ee u dhashay dalkaasi Ruushka marka laga reebo jirdilka maskaxeed 22 saac iyo bar oo maalintii ah qufulka qolka ayaa labadii ninba hal mar kor looga xiraa inta badan maxaabiista waxa loo ogol yahay oo kaliya laba booqasho sanadkiiba taasina waa waxa kaliya ee maxaabiistu ay weligood rajo ka qabaan maadaama xabsiga laftiisu uu yahay mid aan rajo laga qabin in laga baxo oo ay ugu sareeyaan biyaha qabow ee harada cad oo gebi ahaantoodba ah kuwa ku hareeraysan erayada hal mar ay ku hadlaan ilaaliyaasha lagu magacaabo Vasily Ismorov ayaa maxaabiistu ay noqdaan kuwa gilgisha hadii ay qodaan xabsigan waxay ku dhufanayaan biyaha taasoo ay dhibaato badan ka soo gaari karto qabowga maadaama ay yihiin kuwa jirkooda oo baabaay ama bahdilmay oo cunada aan la siinin wanaagsan oo dheelitiran nafaqadooda jirkooduna ay tahay kuwa tacbaan ah oo nafaqa darro iyo cudurro kale ay halkaasi ku haystaan hadii ay isku dayaan in ay dabaashaana waardiyayaasha ayaa lagu amar geliyay qofkii fakada inay dhakada ka toogtaan taasoo iyadana ah mushkilad kale oo meesha ka taagan meeshan waxay baabi'isaa dadka waxa tiri dhakhtarad cilmi nafsiga oo xabsiga ka shaqeysa oo lagu magacaabo Stilifana Kisifola oo ah cilmi nafsiyeed dhakhtar ah oo xabsiga ka shaqeeya maadaama dadkan ay cilmi nafsi ahaan ay u daaweyso oo ay u sheegto waxyaalo quraafaad ah 9 bilood ee ugu horeysa xabsigan ama wax ka badan waxa ay ku qaataan la qabsiga xabsiga ay la qabsanayaan maxaabiista 3 ama 4 sano kadib shakhsiyadoodu waxay noqotaa ama ay bilowdaan mid ay si xumaanaysa oo noqonayaan kuwa aad u sii tamar beelaya ma jirto si qof 25 sano inuu ku qaato meel sidan oo kala ah iyada oo aan nafsadiisu gabi ahaanba ay saahayn mid burburtay mid kamida maxaabiista oo soo koobay rajo la'aanta Pitik Island ayaa markii uu horeysay u sheegay Telegraph website-ka lagu magacaabo tani waa tan ugu xun ayuu sheegay mana jiraan buu yiri masqulo mana jiraan meelo wax lagu dhaqdo oo ku haboon nolosha oo dhan waxaan ku qaadan doonaa buu yiri qolkan markii aan halkan imid ayaan xaaskayga ku iri ma ku fura aniga noloshaydu waa mid qaxar ah oo xabsigan ku eeg in yar ayay ooysay buu yiri tan iyo markaasna weligeen ismaynan arkin ayuu sheegay maxaabiiskan u waramayay Telegraph hadii ay tahay markii ugu horreysay soo baqato channelkan fadlan subscribe dhe muuqaaladan iyo muuqaalo kale oo dhacdooyinka la yaabka dunida ayaan soo qaadan doonaa channelka subscribe sar nala joog nabadii